xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Faarax Cabdi waxa uu soo dhaweeyay heshiiska xisaabta siyaasadda oo ay ka gaadheen khilaafkii ku aadan arrimaha doorashooyinka isagoo sidoo kalena soo dhaweeyay dadaaladii isu soo dhaweynta labada dhinac ee uu sameeyay wakiilka qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador Nicholas Berlanga waxaana uu xogiyuu ku baaqay in heshiiskaasi la ixtiraamo sidii uu ku dhaqan geli lahaa haddii aan nahay xisbiga wadani waxaan bogaadinaynaa heshiiskaasi waxaan diyaar u nahay inaan ka ilaalino wax kasta oo caqabada oo ka hor yimaada heshiiskaasi bulshada Soomaaliland labada xisbi qaran ee kale xisbiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhammaan cid kasta oo khusaysan waxaan ku bogaadinaynaa inay ka ilaaliyaan wax kasta oo caqabado ku yimaada heshiiskaasi waayo muddo 2 sano ayuu soo socday khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliland waxaan u baahanahay in aan ka gudubno wax kasta oo ka hor imanaya heshiiska maanta dhacay sodonka sano Soomaaliland jirtay ama sanka la gashay waxay iibinaysay barnaamij la yiraahdo dimuqraadiyad iyo doorashooyinka xorta iyo xalaasha waxaan ku soo caalamaalay oo geeska Afrikaan kaga duwan waa doorashooyinka hanaanka xisbiyada badana taasoo oo sumcad iyo sharaf weyn inooga sameysay beesha caalamka intii murankaasi naga soo dhaxgalay dhaawac weyn baa soo gaaray runtii dimuqraadiyadeena waxaan say Ilaahay ka baryaynaa maanta hadii Ilaahay naga dhameeyay inaan mar daba ku noqonin waxa xisbiga wadani uu taagan yahay in uu ka qayb qaato wax kasta oo doorashada fulinaya waxa xisbiga wadani uu taagan yahay geed gaaban iyo geed dheer boo fuulay sidii ay dimuqraadiyadda Soomaaliland ee hana qaada ay u sii socon lahayd ee marna wax kale gal lahayd waxa xisbiga wadani uu taagan yahay in uu ilaaliyo nidaamka asxaabta iyo doorashada waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa wakiilka midowga Yurub oo aan ahaynba markii uu horeysay beesha caalamka ay ka soo qayb gasho dhexdhexaadin Soomaaliland 12 sano ka hor 2009kii saddex xisbi udub iyo ucid iyo kulmiye ay dhexdhexaadiyeen heshiiskaasina successful noqdo oo meel maray waana tii ay ku soo baxay xisbiga kulmiye sida ka shaqeeyay dhammaan intii ka soo shaqeysay bulshooyinka Soomaaliland guddiga odayaasha culimada iyo waxgaradka iyo ganacsatada isugu jiray cidii aqbashay xisbiyada iyo madaxweynaha iyo cid kasta aqbasho arkaasi iyaduna aqbashay adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida